waxaa jira ciyaaro aan lagu tilmaami karin finalka oo kaliya waxaa jira habeene ay kubadda cagta joojiso neefta taariikhda ay furta bog cusub adduunkan uu wada sugaya hal jawaab oo kaliya oo ah yaa noqonaya boqorka dunida Argentina iyo Spain ayaa ku kulmay finalka koobka adduunka kooxda haysata horyaalka adduunka ayaa wajahaysa kooxda haysata horyaalka Euro Lionel Messi iyo Lamine Yamal ninkii hore u qabsaday wax kasta kubadda cagta bixin karta iyo waaxidiga da'da yar ee doonayay inuu cadeeyo in mustaqbalka uusan mar dambe sugi doonin Argentina waxay timid kadib markii ay ka badbaaday kulanka ay England daqiiqado u jirtay finalka Spain waxay timid kadib markii ay ka taqalustay Kylian Mbappe isla markaana ay meesha ka saartay kooxdii dad badan ay u arkayeen kooxda ugu cadcad tartanka waa laba safar laba jiil iyo hal koob Argentina waxay u dagaalamaysaa inay difaacato taaj ay dunida oo dhan doonaysa inay ka xayoobiso Spain waxay u dagaalamaysaa inay dib u hanato booskii ugu horeeyay ay ugu dambeysay sanadkii 2010ka Messi wuxuu 90 daqiiqo oo kaliya u jiraa inuu mar kale inta qabsado dunida Lamine Yamalna wuxuu 90 daqiiqo u jiraa inuu noqdo horyaalkii ugu da'da yaraa ee koobka adduunka ee jiilkan cusub laakiin finalkan wuu ka weyn yahay loolan u dhaxeeya laba xidig waa dagaal u dhaxeeya jiil diidan inuu dhamaado iyo jiil aan marnaba diyaar u ahayn inuu sugo waqtigiisa Argentina waxay doonaysaa inay cadeyso xukunkeeda inuusan weli dhamaan Spain waxay doonaysaa inay cadeyso in xukun kasta uu leeyahay dhamaad sababtoo ah finaalada ma doortaan oo kaliya kooxda ugu wanaagsan ee waxay go'aamiyaan sheekada sii noolaan doonta marka biri dambe uusan jirin waa horyaalka doonaya inuu dhaxalkiisa ka dhiga mid weligii sii jira iyo weliba mustaqbalkii yimid si uu dunida ugu qaato